السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتسنتين ما أنت وقميص وأنا اللحظة بشهر نوفمبر كوبي تمنات سنة كلا بدأ كون يشان يلا باتنك مقال كان محربا إن ندي كل وذاقه وزارة أرمها دي بدأ مريكن كا أو شلي وركسو صارتي دي في لوتري يولبا isbedelo laga yaabo in lagu sameeyo DV lottery dib u dhacaya ku yimid waxaan ognahay waqtigii uu furmi lahaa ma laga yaabaa inuu dib u furmo arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagaya Nancy Pelosi haweeneyda kaliya ee afayeen ka noqotay taariikhda intii uu jiray Congress-ka Mareykanka ayaa maanta ku dhawaaqday in sanadka soo socda marka uu dhamaado aysan mar dambe dib u tartami doonin aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ku dhawaad 40 sano markii ay ka soo mid ahayd haddaba taariikhaha la diiwaan geliyay maxaa kamid ah intii Nancy Pelosi ay Congress-ka ay ku jirtay iyo waliba intii ay la shaqeynaysay Trump afartiisii sano hore ee wadanka uu soo hogaamiyay arrimahaasi ayaan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salana Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex baridda qaabka loo guto acmaasha umrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faafahintaasi dheer fadlan WhatsApp number eber 96454927 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda waxaan ognahay DV Lottery 2027 in la filayay in uu furmo caadiyan sida sanad kasta waqtiga nasiibka ama DV Lottery-ga uu furmo horaanta bisha October oo hadda bishii dhamaatay ah isla markaana uu soo idlaado horaanta bisha November oo bishan hadda aynu ku jirno xiliyadan oo kala 5 November ilaa 7 November uu xirmi jiray isdiiwaangelintiisa sanadkan ma uusan furmin arintaas horta waxaa loo sababeynayaa arinta xirnaashaha dawladda oo dawladdan waxaan ognahay maanta maalintii 37 ay xiran tahay record cusub ayayna dhigtay kowdii bishii October ayayna xirantay xilligii la filayay in DV Lottery-ga uu furmo marka iyo Trump oo isaguna laga yaabo inuu gabi ahaanba joojiyay oo meesha uu ka saaray DV Lottery maadaama aan ognahay hadda qaxootigii inuu joojiyay qaxootiga Mareykanka imaanaya sanad kasta waxa loogu talagalay in 125,000 la keeno laakiin Trump hadda waxa uu ku soo koobay 7,500 oo kaliya oo waliba uu leeyahay dadka cadaanka ee South Africaanka iyo dadka reer Europe ee soo galootiga nacab iyo dadka luqadda Englishka ku hadla oo kaliya ayaan keenaya oo Afrika oo dhanba waa la iska dhaafayba gabi ahaanba Trump meesha ayuu ka saaray hadda sanadkan hal sano ayuu ku dhawaad sii maraya iyo 3 sano u harsan ma filayo inuu qaxooti Afrika ama Asia uu ka soo qaadi doono sida hadda muuqata marka DV Lottery-ga aanu soo laabto wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Facebook page-ka ay ku leedahay gaar ahaan State Department-ga qaybta consularka safaaradaha iyo qunsuliyadaha qaabilsan ayaa shalay qoraalka soo saartay waxa qoraalkan oo ahaa 2027 Diversity Visa Program-ka waa Diversity Visa DV 2027 xilligii loo baahnaa in la isdiiwaan geliyo ma uusan furmin xilligan aynu hadda ku jirno sida qoraalku uu qoran yahay waxaan ka warqabnaa inay jiraan warar dad sheeganaya in ay furan yahay isla markaana ay u xareyn karaan DV Lottery 2027 isla markaana shakhsiyaadku ay leeyihiin waa furan yahay oo waa xareysan kartaan ama waa la idin xareyn karaa marka isla markaana ay u sheegayaan shakhsiyaadkaasi adeegyo been oo ah in fursadaha dadka marka ay u xareeyaan ay lagu dooran karo ama selected lagu dhihi karo inay aad u badan yihiin arrintaasi wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku tilmaantay run ma ahan oo waa been abuur waxay yiraahdeen DV Lottery 2027 xilliga diiwaangelintiisu ay bilaaban doonto iyo faahfaahinno la xiriiro isbeddello sanadkan lagu sameynayo
arrintaasi waa arrin muhiim waa tii soo baxaysay lacag ayaa lagu xareysan doonaa oo $1 ayaa laga dhigi doonaa baasaboorkii lagu xareysan jiray ayaa dib loo soo celin doonaa marka isbedeladaasi maxay yihiin ilaa iyo hadda lama ogo marka waxay yiraahdeen xilliga uu furmayo oo dadku ay iska diiwaangeli karaan iyo isbedelo sanadkan lagu sameynayo processkaasi waxaa ku dhawaaqi doonta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka marka ay available arrintaasi noqoto oo waqtigeeda la gaaro marka warkaasi waa cad yahay wasaaradda arrimaha dibadda hadalkeeda sida laga dhadhansan karo waxaa muuqata in weli rajo ay jirto oo DV Lottery 2027 la xareysan karo sanadkan inta uusan dhammaanin weli fursad ayaa furan laakiin haddii sanadkan uu dhammaado wax fursada ma furno hadda November 6 ayaa la marayaa haddii marka November inta aysan dhammaanin la furo oo December inta aysan dhammaanin bisha 12aadna uu xirmo weli fursad ayaa jirta oo la furi karo marka waynu ka war sugaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo inay ku dhawaaqdo hadda waxa socda wada hadal dawladda dib loogu furayo oo labada xisbi maadaama muddo bil ka badan hadda dawladda ay xirneed oo shaqada dawladda ay hakad ku jirtay waxa arrintan saameyn ay ku yeelanaysaa hadda duulimaadkii cirka ee dawladda Mareykanka wasiirka gaadiidka Sean Duffy shalay waxa uu yiri haddii toddobaadka soo socda dawladda shaqadeeda aysan dib u bilaaban waxaan xireynaa 10% hawada Mareykanka ilaa iyo 40 garoon oo garoomada waaweyn ee Mareykanka waxaa dhici doonta diyaarado badan in la kansalo kuwa badanna dib loo dhigo muxuu yiri air traffic controlladii diyaaradaha marka ay soo degayaan iyo marka ay duulayaan maamuli jiray ma aysan helin ku dhawaad muddo bil ah wax mushaara marka shaqooyin kale ay iska raadsadeen wax diyaaradihii duuliya oo markay duulayaan haga markay soo degayaan haga ayaan jirin marka wuxuu yiri ma maamuli karno guud ahaan hawada Mareykanka marka waa inaan dhimis ku sameynaa diyaaradaha ku duuli kara hawada Mareykanka marka arrintaasina xilli hadda Thanksgiving-kii uu soo dhow yahay oo 2 toddobaad ay ka harsan tahay xilliga dadka ay ajnabiga ah ay isku safraan oo isbooqdaan oo isla soo cunteeyaan Christmas-kii uu soo dhow yahay 25 sanadkii cusbaa uu soo dhow yahay haddii arrintan ilaa iyo bishan ay sii socoto saameyn weyn ayaa wadanka Mareykanka ay ku yeelanaysaa marka waynu ka war sugaynaa wasaaradda arrimaha dibadda haddii inta bishan aysan dhammaanin dib loo furo DV Lottery iyo waliba haddii ay dawladdu tiraado sanadkan ma jiri doonaan sanadka dambe ayaa la gaari doonaa haddii alla idmo arrintaasi haddii intaas aan ka gudbo DV Lottery-ga mid ka mid ah ruugcadayaashii Congress-ka Mareykanka gaar ahaan aqalka hoose ama aqalka wakiilada House of Representative-ka Nancy Pelosi ayaa maanta muuqaal ay soo doobtay waxay ku cadeysay in sanadka soo socda ee 2026 marka doorasho uu galayo aqalka wakiilada waxaan ognahay 2 sano kasta xubnaha 435 ee aqalka wakiilada waa la doortaa marka waxay tiri ma tartami doono ku dhawaad 40 sano ayna ku soo jirtay Congress-ka Mareykanka Nancy Pelosi hadda waa 85 jir marka ilaa 39 sano ayaa waxay ka soo mid ahayd aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka Nancy Pelosi waa haweeneyda kaliya ee afayeen ka noqotay House of Representative-ka taariikhda Mareykanka intii uu jiray waxaana afayeenka aqalka wakiilada ay noqotay intii u dhaxaysay sanadihii January 3 2019 ilaa iyo January 3 2000 iyo waliba 23 marka Nancy Pelosi waxyaabo fara badan ayaa lagu xasuustaa waxa la soo doortay sanadkii 1987 ku dhawaad 39 sano ayay waxay ka soo mid ahayd Congress-ka Mareykanka xitaa waa haweeneyda kaliya ee xisbiga dimuqraadiga hoggaanka u noqotay Congress-ka Mareykanka ku dhawaad muddo 20 sano ka badan ayayna hoggaan ahayd waxaan ognahay sanadkii 2023 in ay tiri hoggaanka waan ka degayaa oo dhalinyarada yaryar ayaan ku wareejinayaa Hakeem Jeffries oo hadda nin madow ah oo New York laga soo doorto ayaa gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee aqalka sanadka hoggaanka waxaa la yiraahdaa aqalka wakiilada marka qofku haddii aqlabiyadda haystaana waxa uu noqonayaa afayeen haddii ay aqlabiyadda yar ay yihiinna waxa uu noqonayaa gudoomiyaha aqlabiyadda yar marka muddo ku dhawaad 20 sano ah ayay soo hogaaminaysay intii u dhaxaysay sanadihii 2002 ilaa iyo 2022 ayayna hoggaankaasi ay ka soo mid ahayd hadda marka waxaa laga yaabaa in gabadheeda Christine oo 59 jir ah ay bedeli doonto maadaama in muddo ay wada shaqeynayeen haddaba Nancy Pelosi waxyaabaha caanka ah ee lagu xasuusto waxa kamid ah markii dawladda Mareykanku ay xirantay waqtigii hore ee Trump oo madaxweynaha ahaa sawirkan waxa uu kamid yahay sawirada caan baxay aqalka cad ayaa waxa ay ku kulmayay labada xisbi oo dhinaca Trump oo Republicanka iyo dhinaca dimuqraadiyiinta haweeneyda kaliya
iyada ayaa haween ka ahayd waxaana la arkayaa sawirkan uu ku caanbaxay in inta istaagtay Trump ay farteeda ku fiiqaysay sawirada caanbaxay ayuu ka mid yahay 2018 ayuu ahaa 2020kiina waxaa la xasuustaa Trump markii uu Congress-ka oo State of the Union-ka khudbadii uu ka horjeedinayay marka madaxweynuhu khudbada uu Congress-ka ka horjeedinayo gadaal waxaa ka fariista afhayeenka aqalka wakiilada iyo madaxweyne ku-xigeenka waraaqaha khudbada uu ku jeedinayo koobigoodana madaxweyne ku-xigeenkana waa uu siiyaa afhayeenkana waa uu siiyaa marka markii khudbadii uu dhameeyay in inta istaagtay waraaqihii uu u dhiibay oo khudbadiisa ay ku qorneyd ay hortiisa ku jeexjeexday isla markaana qaabkaasi ay ugu sacbisay iyadoo in ay quursanayso u eg marka waxyaabaha lagu xasuusto ayay ka mid ahayd marka Nancy Pelosi waxay tiri 2027 isma soo sharaxi doono waxay tiri kursiga waan wareejin doonaa marka waxa laga yaabaa gabadheeda oo Christine la yiraahdo in ay la wareegi doonto aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo